asalaamu calaykum kusoo dhowow daawada qaybta afraad ee sheekadii ku saabsanayd xaaskayga jinni bay ka ahaatay. waxaan filayaa qaybihii ugu xasaasisanaa inay iminka inoo bilowdeen ee sheekada, inkastoo weli kow iyo lababa aanay joogin. qaybtii hore waxay noo joogtay markii amal ay ka tagtay saaxiibkeed ayna u sheegtay in iminka la joogo waqtigii uu jiifsan lahaa, maadaama isaga uu doonayay inuu macluumaadyo badan uu ogaado. iskudubaridida sheekadan waxaa qayb weyn ka geysatay walaasheen xamda mataan oo ka mid ah bahda marcadda show. waxaana rajaynayaa inaad si wanaagsan u soo dhowaynaysaan. waxaa tarjumay sheekadaani saaxiibkii cabdiraxmaan xasan anteeno. qaybtaanna waxay ku bilaabanaysaa markii ay amaal iga tagtay ayaan anigiina istuuray oo aan seexday, weliba hurdo dheer oo aad u macaan. waxaan ka soo kacay xilligii duhurka markuu ahaa, waan qubaystay, kadibna quraacdii ayaan qaatay oo salaadii ayaan dukaday. waxaa guriga nala joogta habaryartay oo booqasho noogu timid. habaryartay waxay bilowday inay nooga sheekaysa qaar ka mid a qisooyinka jinniga, waxaana aniga aan ahaa mid si degan u dhagaysta. waa intaas oo aan khibrad yar aan kasii kororsada inkastoo aan dhowr mar aan weydiiyo su-aalo dadka qaar ila yaabeen, waxaana mar weydiiyey xiriirka ka dhexeeya insiga iyo jinniga. habaryar markii ay naga tagtay ayay hooyo ii timid, waxaana i weydiisay sababta aan sheekooyinka jinniga aan ihtimaam gaar ahaaneed ama ahmiyad aan u siinayay iyo sababta aan su-aalaha u weydiinaya habaryartay. balse waxaan u sheegay inaan habaryar sheekada u camirayay, wax kalena aanay jirin. habeenkii fiidkii markuu ahaa, aniga oo bannaanka iska caweynaya ayaan dareemay in xabiibteydii amal ee ii yeerayso, weliba qolkayga igu sugayso. waxaan u soo daadegay dhankaa iyo qolkii, aniga oo aragtideeda aad ugu xiisay, sidoo kalena rajeynaya in dareenkayga uu run ii sheegayo. markii aan qolkii soo galay ayaan arkay iyada oo qolkayga daaqadiisa ku fadhisa, misena xidigaha eegaysa. timaheeda madow, labiskeeda quruxda badan, dayaxa iyo xidigaha daaqada ka muuqda. markii aad isku fiirisay quruxda sawirkaasi, waa mid uusan xitaa farshaxamiistaha ugu fiican caalamka uusan samayn karaynin quruxda meesha ka muuqata darteed. weli waxaan taaganahay albaabka hore, aniga oo goobta aanan u dhaqaaqin. waxaan bilaabay inaan daawado muuqaalkaasi quruxda badan, bilicda iyo soo jiidashada leh. waxaan jeclaan lahaa inaan inta aan u taga garabka aan ka qabto, kadibna aan habsiiyo oo laabteeda iyo sidoo kale laabteeda isgalaan, neefteedana aan qaato si aan u dareemo garaaca wadnaheeda. balse geesinimada aan sidaasi ku samayn lahaa way igu soo dhici la'dahay. anigoo halkii taagan welina eegaya ayay iyada oo aan soo fadhiisan igu tiri, albaabka xir, agteedana imow xasanow. albaabkii ayaan hoosta ka xiray, waan soo aaday dhankeedii. aniga oo weliba u soo dhowaaday, gacanteeda ayay kor u qaaday si aan timaheeda quruxda badan aan ugu salaaxo una dhexgeliyo, balse waan awoodi kari waayo oo ciil badan ayaan dareemay. markaas ayay dhankaygii soo eegtay, iyada oo weliba indhaheeda si degan oo qabow igu soo fiirisay, sidii inay igu dhiirigelinayso inaan gacanteyda aanan celin oo aan dhabanadeeda ku qabto, timaheedana ku salaaxo, laabtana aan geliyo. markaas ayuu garaacii wadnahaygii zaa'id noqday ama uu sii kordhay, waxaana dib aan u gurtay 2 tallaab. amal ayaa markaasi igu tiri, waxaad u muuqataa qof xaalkiisa soo hagaagaya, soona caafimaadaya xasanow. waxaan ugu jawaabay, intaan adiga ku arkaya kuuna jeeda xaalkayga si wanaagsan ayuu ahaan doonaa. markaas ayay igu tiri, laakiin maalmo ka hor xaalkaada soo ma hagaagsanayn. shalay iyo daraad meel naga soo dhig, aan ka hadalna waqti xaadirkan la joogo si aan ugu noolaano sidii la rabay ayaan ugu jawaabay, ayuu yidhi. amal ayaa markaasi waxay ugu jawaabtay, mustaqbalka daqiiqad walba wuu isbedeli karaa. wax horay u tagay iskaba daaye, qof mustaqbal ma yeesho hadduusan wixii tagay uusan cashar ka baran. inaad wixii tagay ka carartaana micnaheeda ma ahan inaad mustaqbalka u ordayso. ma amaltii hore ayaad ka fikiraysaa mase amalta mustaqbalka? adiga ayaa ah xaadirkan la joogo, mustaqbalka kama hormari karo waqtiga. markaas ayaa waxay igu tiri, ka waran haddaanan mustaqbalkaada qayb ka ahayn? waxaan ugu jawaabay, amal fadlan naga dhaaf sheekadaasi, inaan hadda ka fakarno ma rabo. markaas ayay iigu jawaabtay, ma aragtaa hadda sida aad mustaqbalkana aad ugu cararayso? haddii aad ka cararayso wixii tagay maadaama uusan ku jirin waxaad rabtay, mustaqbalkana sidoo kale ka cararaysa, xaggee ayaad u cararaysaa xasanow? ayay weydiisay. dhanka farxadda ayaan u cararayaa xabiibti. ilbiriqsiyada macaan ee aan adiga kula qaadanaya ayaa farxad oo dhan ii ah. mana doonayo inaan waqtigaasi macaan isaga lumiyo ka fakarka wax farxaddaasi iga qaadayo. markaas ayay iigu jawaabtay, xasanow, aniga waxaan ka cabsanayaa waa berri, waayo ma garanayo haddii aan kula joogi doono iyo haddii kale. mana doonayo inaan sabab u noqdo dhibkaaga.
markaas ayaan hadalkii qaatay oo waxaan weydiiyey, amal, maxaa maskaxdaada ka guuxaya ii sheeg, hadalkaada maxaad ugu sii gogol xaaraysaa? markaasna amal ayaa hadalkii qaadatay oo waxay ugu jawaabtay, aniga waxba uma sii gogol xaarayo, balse mar kasta oo aan kugu fakaro waxaan dareemaa inay muhiim tahay, noona roon tahay in xiriirkeena halkan uu ku ekaado. markii aan hadalkaasi maqlay inta aan naxay ayaan ku iriyay, waan ku jecelahay amal, cishqigayga ayaa tahay, mana doonayo inaan la'aanta noolaado. hadalkii iyada ayaa qaadatay oo waxay iigu jawaabtay, aniga xitaa waan ku jecelahay xasanow. maxaa ka qurux badan markii aad tiri waan ku jecelahay, gaar ahaan marka aad ku dhawaaqayso waan ku baryaa mar kale iigu soo celi, waaba u dhammaan lahayd nolosheeda ayaan filayaa, ayuu yidhi. markaas ayay hadalkii qaadatay oo waxay igu tiri, laakiin xasan uma doonayo in noloshaada ay u dhammaato. haa, aniga waan ku jecelahay, taasina waa xaqiiqo, balse arrinkaas waaqiciga jira waxba kama bedeli karayo. waxaad ogaataa in jacaylkan uusan inoo keenin doonin waxa aan ka ahayn cadaab iyo xanuun badan. labada adduun ee aan ka soo kala jeedno suurtagalna ma ahan inay naga aqbalaan. markii ay hadalkaasi igu tiri ayaa durba waxaa igu soo dhacay fikrad, taasi oo uu carabkayga degdeg u soo dafay, aniga oo ku dhahay ayada, amal xabiibti ka waran haddii aan isguursanno. amal ayaa markaasi qosol la dhacday ilaa aan ka baqay inay qosol dartiis ay la sooxdo siday u qoslaysay. sidaasi oo ay tahayna waxaan jeclaa in qosolkeeda ay sii wadato, quruxda ka muuqato marka ay qoslaysa ayaa anigana dareen gaar ahaaneed isii gelinayay. markii ay qosolkeedii ay kasoo bogatay ayay inta ay neef dheer qaadatay, misna ay tiri haah, ayay kadib waxay igu tiri iyada oo weli dhoolla cadaynayso, ma la socotaa waxaad ku hadasha xasanow oo afkaada ka soo baxayo? markaas ayaan ugu jawaabay, dabcan haa, siday kula tahay haddii aan isguursanno? xoogaa yar ayay aamustay iyada oo isoo kuurtay, iyada oo la yaaban dhiiranaanta iga muuqata, kadibna waxay igu tiri, runtii adiga waad waalan tahay xasanow. waxaan ugu jawaabay, waa runta oo jaceylkaada ayaan ku waashay amaley. kadib xoogaa yar ayay ka fakartay arrintii, iyada oo gacmaheeda midna ay ku cayaaraysay marada ay wadato, halka midda kalena timaheeda ay ku dhex wareejinaysay. kadib markii ay fikirkeedii dhammaysatay ayay igu tiri, macquul ma ahan fikradan, waxaad mooddaa inay kasoo tallaabtay dhammaan xuduudihii horyaallay. waxaan ugu jawaabay, ku soo dhawow waalida amaley, mar haddii aad adiga iila joogtid. si la yaab leh ayay markaasi ii soo eegtay, iyadoo ay fiirinaysana waxay tiri, sidee rabta inaad ii guursatid xasanow? waxaana kadib dhex martay sheekadan, waxaan ku guursanayaa sida dadka ay isku guursadaan. laakiin aniga dad ma ihi, mana ka tirsanay insaanka. waxaan kuu guursanayaa qaabka ay jinniga isku guursadaan. laakiin adiga adduunkayga kama tirsanid. maxaad arrimahoo dhan isugu cakiraysaa amaley? adiga waalidaada ayaa arrimaha isku cakiraysid. aniga raalli ayaan ka ahay inaan adduunkiina aan usoo dhuunto oo aan kula noolaado, kula kulmo, mana ka hor imaan doono haddii xiriirkeena uu sii horumaro, balse waa inuu ahaadaa mid ka fog waalida isku xirka ah ee guurka. amal, laakiin waxaan doonayaa inaad ila joogtid weligaa. ma waxaad u malaysaa haddii aad guursatay inaan weligay kula joogayo xasanow? oo maxaa dhahay amaley? aniga ma ahi insaan aad milkiyadiisa aad leedahay adiga xasanow, taasi maanka ku hay. aniga waan ku jeclahay amal, guurkaygana micnihiisa ma ahan in milkiyadeyda aad noqonaysid. xasan, haddii ay sidaasi ay tahay muxuu yahay micnihiisa? amal, runtii ma aqaana erayo munaasib ah oo aan ku sifeeya dareemahayga ee adiga keliya guurkayga ogolow. anna waxaan diyaar u noqonayaa inaan ku siiyo ilbiriqsi kasta oo noloshayda ka mid ah. xasan, sidee ayaa doonaysaa inuu guurka u dhaco oo ay suurtagal ay ku tahay? halkaas markii sheekada ay maraysa ayaan xoogaa aamusay, waayo waxaan ogahay in haddii bashar aan nahay, guurkeenna inuu yahay nikaax, meher iyo markhaati iyo waxyaabaha la midka ah oo xitaa diimaha badankood arrintaas ay ka siman yihiin. balse waxaan isweydiiyey, sidee ayaan ku garan karayaa dhaqanka iyo qaabka uu ku hirgelaya guurka jinniga? amal ayaan markaas u sharaxay, waxna uga taataabtay qaabka uu guurka uu ku dhaco, balse waxaan u sheegay inaanan wax fikrad aana ka haysan dhaqanka guurkooda. markaas ayay iyadana dhoolla cadayso oo igu tiri, ma og tahay xasanow, run haddii aan kuu sheego afkaartaada iyo qaabka aad u fikirayso waxaad moodaa inay isoo jiidanayso. markii hadalkaasi ay igu tiri ayaan farxad la boodboodi gaaray, waxaana dareemay in tani ay tahay bilowga ogolaanshiyaheeda. waxaana ku idhi, hadda adiga ma igu raacsan tahay? markaas ayay si aada ii soo fiirisay, iyada oo dhoolla caddayn kaftan ka muuqato iyo cod farxad leh ay ku jirto igu tiri, waa qamaar, waali ay ka buuxdo, waana macquul inaan maalin tijaabiyo
si aan qoyskayga uga caraysiiyo. Markaas anigii ayaa hadalkii qaatay oo waxaan ku yidhi, fadlan afkaada u ogolow inay ka soo baxaan xarfahan. Waan ogolahay. Hal mar u ogolow bishimahaada inay soo dhaafaan hadalkan ah anigu waan ogolahay. Markaas ayaa Amal hadalkii qaadatay oo waxay tiri anigu waan. halka hay noo joogto qaybta xigtaa ee macluumaadka ku saabsan xaaskayga jin bay ka ahaatay. Saaxiibka Cabdiraxmaan Xasan Anteena ayaa tarjumay, isku dubaridida muuqaalada iyo sheekadaba waa Xamda Mataan. qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo.